Walaalayaal wuu iga kala go'ay weli waa hadalkii waa noo socdaa dhibaatooyinka aan ka hadlayo waa dayacaadda dumarka ilmaha lagu dayaco misna lagu xumeeyo haddana ii sheeg hadal xumada iyo sharaf dhaca iyo qaab darrada iyo waxyaabaha xunxun ee dumarka usii dheer yihiin. Waxaan arkaya dumar badan oo social media inta u soo baxay especially TikTok ayaanta waxaa socda gabar baan arkayay dacwoonayso iyadii ninkeeda hadallo isla dhaafsanayaan halkan waddankan Kenya ayayna ka socotay. Sidoo kale waxaa jirta gabar iyadana social media caan ka ah oo reer Malaysia ah oo Amira la yiraahdo iyadana sidoo kale waxyaabo ayadii iyo ninkeeda isla dhaafsanayeen iyo hadal xumo iyo waxyaabo munaasab ahayn baa jiray iyadoo soo bandhigaysa dhibaatooyinkii ninkeeda uu soo mariyay ama uu ku sameeyay. Marka gabadhaas Amiraha waxay ka hadlaysay ninkeeda sidii uu u galay ilmahaas uu ku dayacay haddana iyadoo saasay tahay hab dhaqan aan wanaagsaneyn uu kula dhaqmay iyadii markay social media timidna isna hanjabaado iyo waxyaabo qaab daran oo kale ugu falceliyay. Marka walaalayaal horta in la kala roonaado ayaa wanaagsan ama habboon. Dumarka ama hooyooyinka dhibaatooyin fara badan bay ragga Soomaaliyeed kala kulmaan ilmaha midda ahna aniga shakhsiyan waxaan u soo jeedin lahaa ragga Soomaaliyeed dumarkii iyo ilmihii yaa la isku xirin ama yaa la isku qabanin. Laba shakhsi yaa kala tihiin ninka iyo naagta hadday isfahmi waayaan haddii noloshii isku fahmi waayaan dee waa ardullahi waasic banaankaas la kala maray. Banaanka haddii la kala marana doesn't mean that ilmihii meeshay ka baxayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan asxaabtii waadin salaam meel walba joogtaan meel walba iga fiirsanaysaan. Caawayto waxaan jeclaystay inaan ka hadlo barnaamij la xiriira dumarka iyo dhibaatooyinka haysta iyo social media iyo qaabka ay iyagana u soo bandhigaan barnaamijyadooda ama dhibaatooyinkooda. Walaalayaal horta dhibka ma yaro waxa kaliya loo dacwoodana waa Allah Ilaahigiina abuurtay na khalqay adduunkana keenay nagu arsaaqo isagoon baa dhibka dumarka Soomaaliyeed haysto isagoon baa ka qaadi kara isaga kaliya loo dacwoon karaa isaga kaliya baa cadaalad isaga kaliya baa cadaalad sameyn kara isaga kaliya baa system iyo nidaam ama sharci awood badan oo annaga haddaan nahay dumar dhibaatooyinkan haysta iyo dhibkan haysta ilmaha intay doonaan ba ha noqdaan nambarkooda it doesn't mean ilmahaas in uu aabbihi u dayacayo oo hooyadii isagoo ku xumeynayo uu dayaco ilmihii mas'uuliyaddii ilaahigii weynaa oo ilmahaas asaga mas'uul kaga dhigay nafaqadoodii daryeelkoodii iyo waxyaabo badan korka ka saaray oo waajib kaga dhigay in uu marnaba iska fogeeyo aabbahaas Soomaaliyeed waa laga wanaagsan yahay. Hooyadii hadday isfahmi waayaan waa mid kale arrin kale oo gooni ah waay laakiin inuu ilmihiisa dhiiggiisii dhacaankiisii iyo ilmihii oo magaciisa wato oo ku abtirsanayo in uu faraha ka qaado oo totally dayaco oo totally uu xataa qaarkood waaba inkiraanbo aabbaha Soomaaliyeed oo muslimka ah boqolkiiba boqol muslimka ah soomay salaadayo waxyaabo badan oo faral Ilaahay kaga dhigi kaloo sameynaya ilmihiisii. Hooyada Soomaaliyeed mar walba waa iska weak markii loo fiiriyo dhibaatooyinka iyo qaabka u handle gareynayso awooddii Ilaahay siiyay waxyaabo ka baxsan baa mar walba wajahayo way u dulqaadanaysaa haddana mid kale u dulqaadanaysaa tu kale u dulqaadanaysaa tu kale u dulqaadanaysaa wixii markay isbiirsadaan hooyada heer waxay gaaraysaa ay qaraxdo dee haddana ayaantaan waxyaabo fududay in qofka bini'aadanka ah uu is sheeg uu ku nafiso uu ku hadlo baa soo baxday oo social media especially TikTok marka hooyooyinka hal ayaan kula dardaarmayaa dhibka waa jiraa waa qarsanahay culays fara badan baa idin saaran aabbihii Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan baa kala kulantaan midda ilmahana waa xanuun aad iyo aad u weyn waay.
waa the only thing oo aabayaasha Soomaaliyeed aan kaga guuleysan karno, especially ma dhahay dhammaantood waa wada xun yihiin, kuwo wanaagsan oo ilmahooda jecel, oo ilmahooda daryeelanayo, ilmahooda mar walba number one ka dhigayo, priority siinayo waa buuxaan. Laakiin inta xunxun oo hadda u badanoo boqolkiiba 98 noqday, waxaan leeyahay hooyooyinka dhibka ku haysan walaalayaal ka daaya, especially markii la kala tago oo banaanka la kala maro, ilmihii hooyada inta ku dayacdaan haddana ku magac xumaysaan, oo qaarkood dhahayaan mentally unfit waa ilmaha la iga soo qaado si ilmahayga aniga aan u biisho oo ilmahayga aniga u haysto, ilmaha ha la iga soo wareejiyo. Xanuunka ay leedahay hooyo ilmaheeda laga qaato, qof walba kan waalan xataa wuu garanayaa, cid aan garanaynin ma laha. Adigoo awoodo hooyadii ilmahaadii inay daryeel wanaagsan ay helayaan, hooyadoodii ay la joogayaan, ay safe ku dareemayaan, jacayl iyo maxabbo aanan la soo koobi karin cid kale oo maanta siin karta macal adiga aabbaha ah, ay hooyadii ka helayaan ilmahaadii adigoo og oo daryeelkaas haystaan, in aad ku xijeyso hooyadii aniga biil kuma siinayo ilaa ilmahayga ay igu soo wareejisid, hadday diidan aad dacweysid, haddii dacwad wax ka qaban weydina aad halkaas faraha uga qaadid, culayskii iyo dhibkii iyo biilkii iyo shidadii iyo mas'uuliyadiina hooyadii aad 2 jibaar iyo 3 jibaar iyo 4 jibaar uga dhigtid, ayada awalba teeda la daalaa dhacaysa. Aabbo ma fiicno, aabba Soomaaliyeed aad tahay, isku xishood dib isugu noqo. Hooyadan waxaan leeyahay haddayba jirto ama dhacdo in dhibkaas uu kugu dhacay, maanta waxaan aaminsanahay sharci islaam oo xoog leh oo awood leh oo wax noo qaban karta hooyooyinka Soomaaliyeed haddaan nahay ma jirto, especially dumarka Soomaaliyeed oo Afrikadan joogto, sharci maanta noo hiilin karo annaga maanta garabna siinayo ma laha. Kuwa Yurub jiraan ama America joogaan, ayaga waxaa laga yaabaa in xuquuqdooda loo soo dhico, aabbaha waajib looga dhigo ama lagu qasbo inuu ilmahaas biilo, at least caawimaad bay helayaan. Laakiin annaga Afrika haddaan joogno, hooyooyinka Soomaaliyeed aan nahay, wallaahi dhibkeenaga ma yaro, cid maanta wax nooga qaban kartana ma jirto. War haddii social media aan ku qaylino iyo haddaanan ku qaylininba, wallaahi uma maleynayo in wax laga qaban karo. Waxa kaliya oo wax ka qaban karo dhibkanaga waa Allihii na abuurtay, Ilaahaygii adduunkan na keenay oo na khalqay oo Khaaliqa ahaa oo nagu arsaaqo, oo qadarta inay tahayba laga yaabaa dhibka inuu asaga noo qadaro, asagaas kaliya unbaa wax nooga qaban kara. Marka walaalayaal, hooyooyinka Soomaaliyeed haddaanu nahay, waxaan idiin sheegayaa ama fariinteedu tahay, walaalayaal dumarka Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa, walaalayaal dhibka waa jira, waxa kaliya oo maanta wax ka qaban kara dhibka hooyooyinka Soomaaliyeed haysta waa Allah Rabbul Caalamiin, Ilaahaygiina abuurtay, aabbaha Soomaaliyeed oo dhibka geysanayo oo hooyada Soomaaliyeed dulminayo, iyo hooyadii Soomaaliyeed oo la dulminayo oo madluumka ah. Waxa wax ka qaban kara oo ka weyn waa Allah Rabbul Caalamiin, Ilaahayga adduunkan na keenay, Ilaahayga adduunkan nagu arsaaqo, Ilaahayga xaakimka ahaa, Ilaahayga caadilka ahaa, Ilaahayga wax walba oo dhan oo adduunkan jooga ka awood badnaa. Ilaahay u dacwoono, Ilaahaygaas aan la hadalno, Ilaahaygaas aan dhibkeena u sheegano. Social media waxba ma tarayso, walaalayaal, social media inaan ka dhahno wax ay sheegayso ama waxay soo kordhinayso ma laha. Of course waa xoogaa nafis waa lagu dareemayaa, laakiin wax kale ay soo kordhinayso ma laha. Wallaahi intaas aniga aan kaga baxayaa, dhibka wuu jiraa, hooyo kasta maanta haddii la wareysto waxaanoo dhib ay soo sheegaysaa, a long list of problems oo aabayaasha ay kaga cabanaysa sheegaysaa. Laakiin maanta in TikTok inta soo fariisano la isu jawaabo, aniga markaan hadlo asaga iga soo daba hadlo, haddana aniga i hadlo asaga iga soo daba hadlo, wax faa'iido ay keenayso ma jirto. Eray iyo buuq iyo madax xanuun baa laga dhaxlayaa. Walaalayaal, waxaas iska dayno. Hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay please, haddaad doonayso xataa inaad nafistid, 2 rakac salaad tuko, Ilaahay ku nafis, la hadal, dhibkaada u sheego, your list however is long or short waxay tahayba, iyada asaga sorry Allahu Rabbul Caalamiin, Ilaahaygaas u sheeg, la hortag, u akhri listiga problemka ku haysto. Laakiin social media waxba ma tarayso. Social media inta wax
dhibkanagana haysta ama problemkeena waxa kaliya oo xallin kara ama sharciga kaliya oo cadaaladda noo samayn kara waa sharciga Islaamka. Allah, Allah kaliya oo Rabbul Caalamiin ah, isaga kaliya unbaa xaakima, isaga kaliya unbaa caadila, isaga unbaa noo cadaalad fali karo. Intii la dulmay iyo intii ku wax dulmayaba asaga u cadaalad samayn kara, u cadaalad qaadi kara, u garnaqi kara. Marka hadalkayga mushowga finalka waxa waaye stop please hooyooyinka Soomaaliyeed aan joojino hadalladan iyo maalayacnigan iyo waxyaabaha la is dumarka Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal dhibka waa jira. Waxa kaliya oo maanta wax ka qaban kara dhibka hooyooyinka Soomaaliyeed haysta waa Allah Rabbul Caalamiin ah. Ilaahay